mudane xasan sheekh maxamuud, ra'iisul wasaare xamse cabdi barre, gudoomiye sheekh aadan madoobe, madaxweyne cabdicasiis laftigareen, mudanayaal waliba ha askari qaran sheeg naafowi dhibaatana lanjeysidi waliba waa bilowga warbixin una siin ku hayna dhibane sheekadaas ka dheedi Mustaf Maxamed Cabdiraxmaan waliba kumid ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 6aad ee ciidanka dhulka walibana ka dhaawacmay qaraxyo iyo dagaalo ka shaldhig gobolada dalka. Mustaf yaa hindhooshe waa isoo ku guda jira waajibaadkii qaran dadshay iyo dalshayna ka difaaca u kooxda Al-Shabaab. Radio Baydhabo ayaa la hadalay usoon ku horeyn sharaxaad ku bi sida dhaawacyadan hadda ku muuqda handeeran qaraha wali ka dhiyay degmooyinka diinsoor ee ka sax dheeran tan dhahaytu u furo ka dhii ana hurgalka jara iyo maran qarahaas dhii hatta qarahaas wali ka dhamaday taliyaha ciidanka Itoobiya meelanka sareeyta ku geenshiye ka dhamaday oo qarada badan oo dhalinyaro ka dhamaaday oo Soomaaliya oo Amazon biska jaro hayti 2017 oo badlo dhamanahay habado tan gaanto ka jirta anagoo taliyaha ciidanka hoogol hinda garash anoo la jaro dhiidi hamara iga ka dhiidi heebta liida afje jidka oo maarne hamar iyo marka hariiriyo oo heebta maraw anoo hurgalka jarnaya dhiidi badiga anta ka jirta tan qasko ka jirtoon shabeelada hoose iyaga ka dhiidiyaan qarankii iyo dawladnimadii uu sashalayn dhaaradiyaan naafowi haddana dhibananaya dhibaatadana ka sii ziyaadahay marba marka ka dambeeyta saraakiisha caafimaadka ciidanka xoogga dalkiyan sheegay in xaaladiis caafimaad ee dalka walbana ninku qabado korna ee aan baahan yahay caafimaad dalka binaanshaye waana heli balse nasiib daro saraakiisha sarsare ee hoggaanka caafimaadka iyo sheegay Mustaf inuu ka hor surmeen isla markaasna aan diidan in dibadda lan qaada ma helna xaqii iyo xuquuqdii mudanay walibana la ka fiirsaday dhaawayadii hadeeri u soo qaran shaqeeyo antaas walibaan dheer inay iska dari handadaad iyo jirdil wali sababay walaalo anoo processkiisa toos ka soo walbiin ku hadlawsanaan iyo hamar iyo wali ku dhiiday iyo artimaamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo stadium Muqdisho ka furmi hamar isbitaalka uga gudegnay guri dabaga meeleed oo dhalaan lahaa ka jartay lagu daawday saraakiisha meelaha daawday si yaartilan daawday marka dadka maasada qaadi lamboli fado ka hadlo gal meeliya shoobre ka dhiidi markaas af lagaadi aytan dadkii meeluroogi jeesidayaan oo yaartay ko fikir been jeesidayaan oo dadka ku jeedin jeesidayaan yaan adkaysidu way markaas ya dhaladii aan lahay ya maarna intii aan ka refiisar shay wala intiqaadi dami sababtan damida ma at yalin dabaatay saasana leen garay saasana borsaska leen ku reebi marar badan ya cabasho gudbi xafiisyada telesidiis managerta cid talaabo ku qaadi haani dulmiga jeesidii xafiisyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed an ka saray xafiiska taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed warqadda abashada taal xafiiska taliya-ku-geenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed warqadda abashada isna targaasan taal xafiiska taliya-ku-geenka ciidanka dhulka iyo xafiiska taliyaha ciidanka dhulka taal lan waliin ku gobdoorna waay dhibane Mustaf iyo madaxda dawladda ka codsaday daryeel caafimaad oo dalka binaanshay si qaran shay u san ka sii shaqeey haddii wali oo saday madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed taliyaha qaybta lehnimaad saraakiisha sharafta leh geebahooda kala gadiisan wali ku oo saday lan la dhabaatay oo qarankan shaqay shan gobol oo gobolada Soomaaliya kamid ah yaa ka shaqay caasimada ka shaqay labada shabeelladood ka shaqay baaya ka shaqay gediha ka shaqay wadankan mudiyan shaqay Abdullaahi Yuusuf Latin askariyaha walaalayaal wali oo saday madaxweynaha dawladda Soomaaliya حسن شيخ محمود رئيس وزراء قدومية برلمان مدوينات دولة جولات كوفر قلبت ولين كوس داي ولا ليالو لان يرى صدق يشنجره أو ودنك نحن شقي ياها إني أنا شقي يون ديارنا أنا إن دولا إني أنا شقي يون ديارنا أول كلا إسكده ولا ولين باهنا في مادة بدأ إني أنا وركيل جيسي ما هذا يام باهنا magaalada Muqdisho caasimada dalka iyo Soomaaliya intii kala waliba ku dheey falal arxan daran oo mararka qaar qof bini'aadinga naftiisku waayo micna dara manageraan hay'ada garsoor iyo haano amni oo si dhab ah walan ku qabado Nuuradan Xaaji Radio Baydhabo